weerar dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland. Haddaba yaa weerarkaasi qaaday? Xagee lagu qaaday? Khasaaruhu waa imisa? Maxaa sababay weerarkani? Warbixintan ayaan ku soo koobi doonaa. Sidoo kale waxaanu eegi doonaa ciidamada Puntland ayaa maanta guulo waaweyn oo la yaab leh ka gaaray buraha caalmiskaada ay ku dagaalamayaan ciidamada iyo kooxda Daacish. Goobo fara badan ayay ciidamadu maanta la wareegeen oo toga jacayl ku hareeraysan. Haddaba goobahaas ay la wareegeen warbixin baan idinkaga hayaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Daney oo kulan xasaasi ah Boosaaso ku sameeyay yuu la kulmay. Warbixin baan idinkaga hayaa macluumaadkaas ayaa barnaamijkeena ku soo koobi doonaa. Muuqaalkan la garaya channelkana subscribe saara kuna soo dhawaada warbixinteena galabtay. haddii aan ku bilaabo warbixinteena magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug muddo weerar socday markaasi maleeshiyaad hubaysan ay ku qaadeen goor maanta duhuroodkii ah xarunta kastamka biriga ee magaalada Gaalkacyo ee Puntland. waa kastamka canshuuraha biriga ee magaalada Gaalkacyo dhinaca Puntland. maleeshiyaad weerarka soo qaaday oo ahaa maleeshiya beeleed hubaysan ayaa weerarkaasi qaaday. waxayna ku qaadeen kastamkaas oo ay markaas ku sugnaayeen ciidan isla markaana ay shaqadu ka socotay, isla markaana ay shaqaalihii kastamku ay halkaasi joogeen canshuuraha ee bartamaha magaalada Gaalkacyo. weerarkaasi waxaa la warinayaa in hal askari uu ku dhintay halka ugu yaraan 3 kale ay ku dhaawacmeen. waxaana la soo warinayaa markaasi in muddo ay rasaastu socotay ay halkaasi qof iyo dadkaasi kale 3 ugu yaraana ay ku dhaawacmeen halka midkaas halka askariina uu ku dhintay weerarkaasi. maleeshiyaadka weerarka soo qaaday oo abaabulan isla markaana ahaa maleeshiya beeled ayaa weerarka ay qaadeen waxa uu ahaa mid aan la filayn oo si kadiisa ku dhacay, isla markaasna halkaasi ayaa khasaare ka dhacay. magaaladoo dhan ayaa hal mar ku wada heshay rasaasta iyo khasaaraha hal mar halkaasi ka dhashay ee dhibashada, iyadoona si weyn ay dadka dareenkoodu ay u kacday, isla markaana si weyn looga xumaaday dhacdadaas halkaasi ka dhacday kastamka canshuuraha biriga ee magaalada Gaalkacyo ee Puntland. ragga maleeshiyaadka ee weerarka qaaday ayaa waxaa la sheegay in ujeedada ay weerarkan u qaadeen ay ahayd inay aad uga xun yihiin rag isla iyaga ka tirsan oo la xiray ama xabsi ku jiro oo ay ciidamada dowladdu ay xirtay. raggaasi la xiray oo markaasi qudhooda la xiray habeenna ka hor mar isla shaqaaqa ay magaalada Gaalkacyo ka dhacday kadib markii isla maleeshiyaadkan hubaysan ay weerar ku qaadeen ciidamada xasilinta ama isku dhafka ciidamada Galmudug iyo Puntland ee xasilinta magaalada ka shaqeeya. maleeshiyaadkaas weerarka qaaday ayay habeenkaasi ciidamada Puntland waxa ay qabteen dhowr qof oo qaybtood ay dhaawacayeen oo isbitaalka kala baxeen. waxaana la sheegay in isla maleeshiyaadkan ay markaasi ka xun yihiin isla dhacdadaas looga xirxiray raggaasi mid dhaawac ahaa, isla markaana ay weerar maanta ku qaadeen kastamka canshuuraha ee Puntland iyaga oo ka jawaabaya xabsiga looga xiray ama raggaasi laga xiray ee ka xiran inta muddada ah. tilaabadan ay maleeshiyaadkani qaadeen ayaa si weyn loo cambaareeyay iyadoo oo lagu tilmaamay inay dhacdo khalkhal gelisay amniga magaalada Gaalkacyo. Gaalkacyo ayaa tan iyo bilowgii sanadkan waxay wajahaysaa qaraleesa iyo dagaalo iyo sidoo kale kacsanaan iyo amni darro weyn oo magaalada ka jirta. arrintan oo sabab u tahay kacdoonadan maleeshiyaadkan hubaysan ay sameynayaan iyo weerarada joogtada ee ay qaadayaan. haddii ahaan lahayd weeraro lagu qaaday dhinaca Galmudugta, weerar kale oo lagu qaaday dhanka ciidamada xasilinta isku dhafka, iyo kan kale ay maanta maleeshiyaadkan ay qaadeen, taas oo si weyn ay markaasi dadka magaaladu ay uga dhiidhiyeen, gaar ahaan dadka arrimaha bulshada iyo nabadda jecel ama ka shaqeeya. dowladaha ayaa sidoo kale ama Puntland ayaa si weyn loogu eedeynayaa inay aad u dayacday magaaladu oo amniga iyo wax ka qabashada ay meesha ka baxday, isla markaana weeraradan soo laalaabanaya ay yihiin kuwa laga hortagi karay ama kuwa markaasi waxyaabaha sababaya xal loo raadin karay. waxaana markaasi arrimahan oo dhan ay salka ku hayaan ama halkii ugu horeysay ay ka soo bilaabatay ahayd colaadaha ka jira dhanka galbeedka ee magaalada Gaalkacyo ay ku dagaalamayaan laba beelood oo ka soo kala jeeda Bandiiradley iyo Galdogob oo Galmudug iyo Puntland ka kala tirsan. waxaana habeenna ka hor weerar ama colaadaasi ay u soo wareegtay gudaha iyadoo maleeshiyaad hubaysan ay weerar isku qaadeen gudaha magaalada oo shaqaaqa dhimasho iyo dhaawac sabtay magaalada ka dhaceen. wasiirka maaliyadda ee Puntland oo shalay hadlay waxa uu ka digay in colaadaha ka soconaya galbeedka gobolka Mudug loo soo raro gudaha magaalada Gaalkacyo oo uu yiri waa arrin dambi ah oo la aqbali doonin, asagoo sheegay inay tilaabo ka qaadayaan cid allaale iyo ciddii tilaabadaasi qaada ama magaalada Gaalkacyo u soo rarta colaadaha dhinaca galbeedka ka taagan.
haddaba weerarkaani khasaaraha maanta dhaliyey oo halka qof ku dhintay halka ugu yaraan 3 qofna ay markaasi ku dhaawacmeen ayaa waxay ahayd dhacdo ka dhacday kastamka canshuuraha biriga ee magaalada Gaalkacyo ee Puntland iyadoo ilaa iminka aysan dawladdu ka hadlin waxaana la sheegay in kastamka iminka ay la wareegeen ciidamada dawladdu oo kastamka iminka gacanta u dib ugu soo laabtay ciidamada kadib muddo kooban ay maleeshiyaadkaasi ay gacanta ku haysteen halka haddaan uga soo laabano warka la xiriira maleeshiyaadkaasi hubaysan ee kastamka canshuuraha Gaalkacyo weerarka ku qaaday maantay iyo khasaarihiisa markaana buuraha calmiskaada gobolka bari ayaynu dul istaagaynaa ciidamada difaaca ee Puntland ayaa maanta waxay sameeyeen howlgallo ballaaran oo ay ka sameeyeen toga caan baxay ee ku soo caabaxay dagaalka Daacish ee tog jacayl ee ku yaala buurta calmiskaad bari ciidamada difaacu waxa ay la wareegeen deegaano kala duwan oo kulaala tog jacayl gaar ahaan deegaanka la yiraahdo qurac iyo sidoo kale damdamle oo toga jacayl ee buuraha calmiskaad ee gobolka bari ku yaala howlgalkan ciribtirka ee Puntland kula jirta kooxda Daacish ayay waxay sheegeen ciidamadu inay guulo waaweyn ay maanta xaqiijiyeen isla markaana ay meydka goordhow ay ku baahin doonaan muuqaalada meydadka kooxda Daacish oo ay maanta ay dileen goobo muhiim ah ay ka qabsadeen sida markaana warbixinta lagu sheegay ka soo baxay howlgalka argagixisada Puntland ay kula jirta kooxda Daacish maalmihii ugu dambeeyay dagaalada dhacaya ee dhanka biriga ee ama dhulka ee ka foolka waxay ahaayeen kuwa hooseeya laakiin waxa xusid mudan in weerarada dhanka cirka ah ay Puntland saaxiibadeeda Imaaraadka iyo Mareykanku ay ka taageerayeen dhanka kale howlgallo mina baarisa ayay Puntland saacadihii ugu dambeeyay ciidamadu sameeyeen way ka sameeyeen dhulka buraleyda ee gobolka bari halkaas oo ay ciidamadu guulo waaweyn ay ka gaareen isla markaasna ay minooyin fara badan ay soo saareen howlgallada soconaya ee ka soconaya tog jacayl iyo hareerihiisa oo ah dhulka ay Daacish ku xoogan tahay ee la oran karo waa halka ay dhasha dhigatay waa halka ay ku mintidayso inaan laga qaadan ama aan laga saarin iyo halka ay ku adkeynayso halka la aaminsan yahay inay tahay xarunteeda madaxtooyada ayay Puntland doonaysaa in ay mar gudaha intay u gasho ay goobtaasi la wareegto waxaana la aaminsan yahay dhulkan tog jacayl ka hareeraysan iyo deegaanada ay kooxdu ku xoogan tahay in haddii lagala wareego cimriga kooxda uu sidaas ku soo go'ay ama uu ku soo dhamaaday Daacish iyo Puntland dagaaladu wali waa ay socdaan isla markaana dagaaladani waxa ay noqonayaan kuwa aan wali laga meeqaan gaarin ama kuwa aan wali markaasi guul dhammaystiran lama gaarin sababtuna waxay tahay in wali ay soconayaan dabcan dagaaladii dhulka kooxda laga qabsadayna uu aad u fara badan yahay laakiin dhulka buuraha ee Puntland wali kooxda gacantooda kama wada bixin oo qayb ayay ku jirtaa dagaalkuna joogsamahaya inta ay gacanta ku hayso sidaas ay Puntland sheegtay waana sida saxda ah oo kooxda ilaa iyo dhulkaas oo laga qabsado waxa ay markaas guul la gaari karaa laakiin qaybo kamid ah wali hadii ka harsan tahay waxay ka dhigan tahay inaan guul la gaarin isla kooxda ay wadanka ku sugan tahay biri ka maalin heerka ka siimiisi karto warkaasna halka uga soo laabana dhinaca kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland iyo sidoo kale ay weheliyaan gudoomiyaha ku-xigeenka koobaad iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland iyo xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada ee Puntland kulanka waxa looga hadlay xaaladda guud ee Puntland gaar ahaan amniga iyo howlgalka ciribtirka argagixisada Daacish ee ka socda calmiskaad oo hadda galay wajigiisa labaad dagaalkaas oo markaasi ahaa dagaal qaraar oo wali ka soconaya waxaana xubnahan iyo dawladda iskala shiraan iska weydiiyeen wixii la sameyn lahaa wixii markaasi la gubdoon wixii ciidanka iyo dhaqaalaha iyo dagaalka laga yeeri lahaa waxaana moodaa madaxweyne Dane inuu kulamada uu badinayo isagoo kulamo goongooni oo la qaadanayay maalmihii la soo dhaafay kooxahani oo kooxda kulamo sidii loo soo ciribtiri lahaa ku saabsan in madaxweyne Dane uu la qaadanayay dabcan dawladda xubnaheeda kala duwan odayaasha iyo qabaa'ilada gobolka bari dega ganacsatada iyo cid walba ay hay'adaha iyo caalamka uu ku jiro waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaas ku soo gabagabeynaya warbixinteenan weerarkii Gaalkacyo maanta ka dhacay iyo goobaha maanta ay ciidamada Puntland Daacish kala wareegeen calmiskaad ayaan ku soo koobaynay ama aan kaga hadlaynay muuqaalka inaad like garayso channelkana subscribe garayso muuqaalkana aad sii share garayso ayaan ka codsanaynaa nabadgelyo